بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبضي داود إلى ذهانتي بميل كستو جوجتان كسو دوادا برنامجكيني دور جوجتا barnaamijkeenan duurjoogta aynu ku soo qaadanaynay saxaaraha weyn ee loo yaqaano naybaan ee ku yaala dalka Namibiya waa qaybteennii saddexaad balse marka hore fadlan nagu soo biir oo ka mid noqo taageerayaasha channelkan subscribe garayso guji si aad ula socoto muuqaalada aanu mar walba soo gelino una noqoto qofka ugu horeeya ee helaya warbixinaha iyaga dooro calaamadda jeliska amba gambaleelka sidoo kale like-ta ku dhufo oo share garee muuqaaladayada si ay dad badan u gaadhaan fadlan haddii ay kula tahay inaad fakarkaaga ka dhiibato ama aad fakarkayaga nagu taageeri karayso qaybta commentiga noogu reeb fariin ama aragtidaada ka dhiibo inta haddaad samayso aad baad u mahadsan tahay waxayna caawa ku jira weerarka iyo ugaarsiga labadii boqor ee walaalo ahaa ee saxaaraha waxaanay dhankooga iyaguna ka ugaarsanayaan ugaadha ay gooluhu eryanayaan waxay ku guulaysteen inay ugaarsadaan habeenkan caawa ah geri kaasi oo ah cunto aad ugu filan kooxdan ka kooban 8 waa cunto 1,000 pound ah marka la qiyaaso waxay ku filan tahay maalmo iyo kolba si ay u isticmaalaan raxantu waa maalintii labaad iyo weliba raqdii raxantu weli way cunaysaa waxaanay ka ceshanaysaa xayawaan kasta oo meesha yimaada waxaa saxaarahan naybaan ku nool ugaarsadayaal kale oo nolosha adag iyaguna dhankooda ula dabaalanaya waa harimacad dhadig oo hooyo u ah 2 dhallaan ah oo jira muddo dhowr bilood ah haraad iyo gaajo badan ayaa iyaga laftigooga haysa waxa libaaxa iyo iyaga ka dhaxeeya waxa weeyaan dagaal weyn xagga ugaarsiga iyo xagga weliba dhallaanka oo ay mar walba iska laayaan
waxay rabaan harimcadadanu inay ugaarsadaan. waxaanay durba arkeen koox deerooyin ah. kooxda deerooyinkaa laftigeega waxaa haysa haraad badan iyo gaajo, maadaama biyihiina yaraadeen, dhulkiina cawskii iyo geedihiiba ay qallaleen. mid dhaxdhaamaa ma jiro goobtan, oo mid kastaa isaga ayaaba daallan. siduu u ugaarsadaana ama kala ugaarsanaya u cararaana aad bay ugu adag tahay. duurjoogta saxaaraha ku nooli waxay maalin kasta soo raadsataa biyaha yar ee ku sii harsan naybaan. libaaxyadana iyo weliba kooxdanna fursad weyn ayay ka helaan in ay goobta yimaadaan ugaadha kale. balse hadday biyahani dhammaadaan, duurjoogtu way ka tegaysaa goobta. libaaxana noloshiisu aad bay u adkaanaysaa, waxaanu ku qasban yahay in uu duurjoogta ka daba guuro oo uu ka tago dhulkoogan ay xuduudka u leeyihiin. waxa ku nool waraabayaal iyo weliba ay duureedyo dhammaantood u wada baahan biyahan. goolihii walaalaha waxay khaarajiyeen ay duureed, waayo waxa uu ka laynayaa dhallaanka. saa awgeed waa inay u dishaa si ay kuwa kale ay duureedkiina uga fogaadaan goobta. biyihii yaraa ee ugu dambeeyey ee ku harsanaa goobta libaaxyada laftigeedu way sii yaraanayaan, oo waxa ku sii hadhay dhulkii waxoogay dhiidhiya ama dhooqa ah, ama wax yaroo aan kuba filnaynba duurjoogta goobta ku nool. waa bishii 10aad, dhulku waa oomos iyo abaar. waxaa soo muuqday daruuro. daruurihii isa soo qabsaday ee loo malaynayay inuu roob ka di'i doono, roobkii u kala yaacay. daruurihiina waxa kala yaaciyey kulaylka iyo cimilada ka jirta dhulka naybaan.
roobkii la sugayeyna halkaas ayaa lagu waayey. maadaama roobkii la la'yahay, duurjoogtii aad bay u sii itaal daraysay, awooddoodiina isu sii dhintay. mid kastana kulaylka ayaa ku dhiba. dhibta ugu weyn ee goobtan duurjoogta ka haysataana waxay tahay libaaxu mar walba biyahan yar ee ku soo hadhay meesha duurjoogta kale waa ka eryanayaa, isaga oo fursadna ka doonaya inuu ku ugaarsado. kani waa goodir lab 100 pound ayuu ka weyn yahay libaaxa ugu weyn Afrika, waxaanay rabaan walaaluhu inay ugaarsadaan, isaguna waxa uu rabaa haraadka haya awgeed inuu biyaha ka cabo. dhaqaaqii ay walaaluhu ku dhaqaaqeen 3 ka midii waxa uu sheegay shimbirihii, isaguna goobta waa ka cararay, waxaanu durba ku dhacay biyaha, balse degdeg buu uga baxay. halkaana libaaxii iyo kooxdu way ku guuldaraysteen inay goodirka ugaarsadaan. fadlan nagu soo biir oo ka mid noqo taageerayaasha channelkan. subscribe garayso, guji si aad ula socoto muuqaalada aanu mar walba soo gelino, una noqoto qofka ugu horeeya ee helaya warbixinahayaga. dooro calaamadda jeleska amba gambaleelka. sidoo kale like-ta ku dhufo oo share garee muuqaaladayada si ay dad badan u gaadhaan. fadlan haddii ay kula tahay inaad fakarkaaga ka dhiibato ama aad fakarkayaga nagu taageeri karayso, qaybta commentiga noogu reeb fariin ama aragtidaada ka dhiibo. intaa haddaad samayso aad baad u mahadsan tahay. waa tahay daawadayaal, qaybteennaa 3aadna intaas ayaynu kaga gudbi doonaa. inta aynu qaybta dambe ku kulmi doonaa 4aad, waxaan leenahay dhammaantayo nabadgelyo.